Taiwan ICDF oo dhanka beeraha ka taageerta Somaliland ayaa tababar waxa ay u furtay 110 xubnood oo ka mid ah maamulka sare ee iskaashatooyinka ku midaysan dalada xoolo dhaqatada beeralayda Noolays ee degmada Salaxley. Xubnahaasi iskaashatooyinka ee loo furay tababarka ayaa waxa ay ka kala yimaadeen tuulayaasha hoos yimaada degmada Salaxley. Sidoo kale waxaa shahaadooyinkoodii aqoonsiga ee wasaaradda horumarinta beeraha halkaasi lagu guddoonsiiyey 6 iskaashato oo ka mid ah dalada xoolo dhaqato beeralayda degmada Salaxley ee Noolays. Tababarkan oo muddo 2 maalmood u socon doona iskaashatooyinka xoolo dhaqato beeralayda degmada Salaxley ee Noolays ayaa waxaa ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha degmada Salaxley Aadan Cabdiraxmaan iyo sidoo kale gudoomiyaha dalada xoolo dhaqato beeralayda Noolays ee degmada Salaxley iyo qaar ka mid ah xubnihii tababarkaasi loo furay ee iskaashatooyinka kuwaasi oo dhammaantood u mahad celiyey Taiwan ICDF tababarkaasi ay u furtay. ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaasha madaxda iskaashatooyinka gudoomiyayaasha gudoomiye ku-xigeenada iyo maamulka guud ee iskaashatooyinka ka kala yimid tuulooyinka kala duwan qaarkood soo safreen masaafo runtii 60 kiiloomitir oo libaax qowdhimo qaar ka yimaadeen aad iyo aad baan u mahadsantihiin saa waqtigiina soo horteen halkan u timaadeen mar labaad waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha dalada Noolays Sidiiq Maxamed Xasan oo runtii aan dadaal badan hawshan ka soo shaqeeyay hawshan runtii waxa kale oo mahadnaqayaa qolada ICDF ama Taiwan Sharmarke iyo tiimka kale nagala jooga aad bay u mahadsan yihiin kulli tababarkan wuxuu ku saabsan yahay cayayaanka iyo la dagaalanka cayayaanka qaabka loola dagaalamayo qaabka loo isticmaalayo sumaha waa tababar muhiim idin ah aad bay ugu mahadsan tahay Taiwan mar walba in la shaqeeysa inay la shaqeeysa hawlaha horumarinta wax soo saarka waxa kale muhiim idin ku tahay arrinkan markii koobaad ay isu yimaadaan maamulka iskaashatooyinka tuulooyinka ee kala duwanaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan runtii inaad isbaran doontaan inaad wax kala faa'iideysan doontaan nambarada kala qorataan aad wada xidhaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa Taiwan oo noo qabatay markii labaad training maanta oo ay halkan ugu qabatay 110 qof oo ka soo qayb galay seminaarkan waxa kale oo mahad celinaya iskaashatooyinka gudiyada iskaashatooyinka madaxdooda 4 xubnood ee fulinta ee ka yimid deegaanada aadka u fog oo soo taraag badan soo galay si halkan waxna uga kororsadaan shirka ay iskaashatooyinku ku yeelanayaan degmada Salaxley gaar ahaan hotelka Star isku soo xil saaray aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan la Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha idinku daro halkan sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa boorka dalada Noolays xubnaha ugu sareeya oo iyaguna habeen iyo maalin u soo jeeda sidii u horumarin lahaayeen dadkii ay ka soo jeedeen ama degmadoodii ama guud ahaan Somaliland iyagana waxaan la Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha idinku daro iskaashatayda magaceedu waa badnamo deegaankeedu waa balciise أنا وحنا قدامي هذا عبد الرحمن علي محمد بان هاي ساق توبر ورقصن أيها هالكلام لو قبضت التوان توبر كا عندي كاستمرتي كعن جيستي وأنا هذا قلنا توبر كنا وحيابها مارتي وقوم هم سنة أنا وأنا مقرنا ساعتان بدنا منها مقرنا ساعات سولو ونوع كم ده تبغى بانه هلا أنا هرم مقرنا ساعنا أنا نورق ويبغى وحيابه مين كم كوار كي واحد كم ده تدوين بدون مقرص لقو دوين كرو جيدا مقرص بيرها دودا سوكا يا مهم أنور كاي وحوي أنا وحنا هاي ديجان كلي بحق ودماء إسكاشتدي وحنا نكقابن هاي حبنا بدن ندنون الشقين نميل في عن باي مريسا أنا وحنا قدوميها حبنيه كلا لو يشوجان آدي بدال كده في عين هاي waxa aanu halkan maanta hambalyeynayna xafladan ballaaran ee aynu isugu nimi ee waxbarashada ee wax isu sheega ee mustaqbalka ee horumarka waxyaabaha faa'iidada ee aanu qornay waxa ka mid ah xayayaanka sida wax loo beeranayo sida looga daweynayo sida looga dilayo qaybtan waa gudoomiyaha waxa la yiraahdaa magaceeda hoobaan qaybta kalena waxa la yiraahdaa afraad labadaba anigoo ku hadlaya afkoodii wixii anagu taagayaga oo dadaalo waan bisanahay
waxqabad kale welina soo gaarayna ma jira laakiin annagu wixii aanu qabsan karin baanu dee qabsannay oo aanu ku dadaalay insha allah dee midhihii koowaadna kulankeennan iyo wixii aqoon aynu kala qaadan iyo faa'iido wixii aynu kala helnay ayaa lambarwan noo ah waxaanu ka soconnaa qoolbulole amba ciidaamin baa la yidhaha iskaashatadeeda aad iyo aad bay u fiican meel wanaagsan bay maraysa tababarka saaka halkan ka furmay waxaa furtay hay-addan taiwan bay ahayd waxay qabatay tababar aad iyo aada u fiican waxay samaysay xagga waxbarashada daawooyinka xagga waxbeerista xagga dhaqangalka geedku markuu dhaqan gelayo aad iyo aad bay u mahadsanayd mawliid maxamed siciid degmada Salaxley